ceerigaabo war nabadeed oo lagu diirsaday ayaa ka soo baxay labada dhinac. barnaamijkuna waa dhextaalka iyo toddobaadka waxaana idin soo gaadhsiinaya aniga oo libax barqiye ah. bal haddaba aynu guda galno. waxaa maanta hawada soo galay colaadii ceerigaabo ka socotay baaq nabadeed oo labada garab ah laguna soo afjaraya colaadii u dhaxaysay labada dhinac ee kala ahaa labada beelood. labadan dhinac ayaa muddooyinkii u dambeeyey ku jiray xiisad colaadeed oo salka ku haysay khilaaf dhuleed iyo kala aragti duwanaansho siyaasadeed oo sababay dhimasho iyo dhaawac maalmihii u dambeysay ka jiray gobolka Sanaag. haddaba hogaamiyayaasha dhaqanka ee labada dhinac ayaa hadda isku raacay in wadahadalo rasmi ah la gaaro laguna bedelo colaadii nabad. baaqan nabadeed oo Soomaalidu meel kasta oo ay joogeen si weyn loo soo dhaweeyay. sidoo kale waxaa qayb ka noqday dadaalada iyo nabadeynta culimada iyo waxgaradka dhaqanka labada dhinac. dadaaladan nabadeed ayaa waxaa garwadeen ka ahaa garaadada iyo salaadiinta deegaanka, iyagoo isku raacay in xal waara laga gaaro colaada soo noqnoqotay ee ka taagan ceerigaabo. garaadada ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay gacan ka geystaan nabadeynta iyo dib u heshiisiinta, iyagoo ku baaqay in la tixgeliyo baaqa nabadeed. dhanka kale, salaadiinta ayaa iyaguna ku baaqay muhiimadda ay leedahay in laga wada shaqeeyo nabadda, horumarka iyo xasiloonida gobolka. waxa ayna ku celceliyeen in la joojiyo dagaal hubaysan oo ka dhex qarxa walaalahood oo ay dheef iyo dhaqanba wadaagaan. xubnaha labada dhinac kala hogaaminaya ayaa saacadihii u dambeeyey soo dhigay miidiyaha baaq nabadeed oo lagu daminayo xiisada colaadeed. waxaa sidoo kale la filayaa is-afgarad in laga gaaro guddi wadajir ah oo ka shaqeeya hirgelinta heshiisyada nabadeed iyo ilaalinta nabadgelyada deegaanka in loo magacaabo. saacadaha inagu soo fool leh waxa ay ugu baaqeen shacabka inay taageeraan dadaalada socda oo ay isu taagaan dhisme mustaqbal nabdoon oo barwaaqo leh. waxaa la filayaa in maalmaha soo socda la qabto shirar dheeraad ah oo lagu xoojinayo heshiisyada nabadda iyo wadajirka bulshaweynta ku nool ceerigaabo iyo nawaaxigeeda. warnabadeedkan waxa uu iftiiminayaa rajo cusub oo ku saabsan sidii xal nabadeed oo waara looga gaari lahaa colaadda ceerigaabo, iyadoo xoogga la saarayo iskaashiga dhinacyada kala duwan ee deegaanka. halkaas ayuu warkeenu caawa ku dhan yahay ee la socda wararka dambe.